suudaan 2009kii magaalada la yidhaahdo Saleym waa xadka u dhaxeeya Masar iyo Suudaan ayaan joogay jamaacan la socday nin caalima ilaa imka ninka caalimka waan xasuustaa magaciisa Sheekh Saabir Ali baa la oran jiray allaama khatiiba oo ilaahay uu siiyay quwwata albalaaga wal kalaam wal fasaaha ayaan gurigiisa ku buuqday miskiidku wuxuu qaadaa taqriiban ilaa 10 kun oo qof markaas jamaacaddii miskiidkan lagu tiri ya jamaacada Djibouti dhageysta masaajidkan 2 saac subax uu buuxsami doonaa balaas waa la kala waayay hadda imika si diyaar garooba masaajidka alaabtiina meel dhigta balaas si qabsada sidee wala ninka khatiibka halkan waxa looga yimaada 100 kilometer ba khudbadiisa looga yimaada هاي نوجي هنزيارني دائما جماعة ترتيبته وحا كمده ما نزلوا في منزل هذي مقال أما مسكيت كود دقان لابد وين الشيخ عالم كزيارتان قولي جيسي وانو قلتني مركز جماعة كو جوكتا اللي يرو صوغل ابو نقر وان قال لي خطبة بور قدر كو ديار سنة وخطيب ولي بور قدر وكو قرطان ما هنا يعني يخطب بدون الورقة مركز نقول من أين مركز نقول من جيبوتي ويا جيبوتي ها طريقات صومرتين waxaan ka yidhi waxaan soo maray Djibouti Sanaa Khartoum ilaa iyo qaryadaada waxaan ku imanay bas maxaad masaafada inta leeg aad u soo gasheen buuri bali sheega markaasaan idhi waxaan u soo galay li islaahi anfusina waxaan u soo galay sheeg waxaan u soconaa baan ku idhi li islaahi anfusina thumma buuri ولتذكير إخواننا يدتك ولا الله يا مسلمين إن صبر رجلنا صو زيارنا ثم والإحياء جهد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك النبي محمد وأمد وقت سجد حلك أهانا أمد علماء كوي عيسى حلك عامدنا أدوية وجزتينا إن العامد وشجنا وكن رانو ذلك الدين إني كان عامي ولا نجرب أي علماء الله شقية أو قرب علماء الصية مركز سوري كلام عجيب وحكى له ماذا من وحكى انت بنصعنا وعود اياي نقدم بيا وحي نسيه مركز نري والبوا بماله ونفسه عجيب وكاي شراب كيبو نو دغدغاي كل كان عبني بو نغيري بس واني من مسجد كاس كسودا انغو waxaan leenahay ninkani su'aalaha sidoo noo weydiiyay daqiiqa tolo khudbadii dhanayd ba bilow ka soo diyaari oo tabliiq عجيب منبركي مر علي مركو فولي هذا الكيس وحو كبلابي جماعة يقول تمي دي بودي قريقا وحي يقول يراد وحن كوير محاد الكوتي مادن وحي يقول يرادن وحن نصعنا إصلاح النفط يده واتان أنكم أنت آن اللو سنة يقول هذا العلماء نهي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آيادا انتو قبتيبو ساعد يا برد بكدغ خطبه جمعه اصلاح النفس نفت اول اصلاح يا وفرض عين على كل مسلم طبعا كن اوقفوا مسجدكم مصلينا صلاتودا بالكبخ وا كاس طبعا كن اوقفوا مصلينتيا صلاتي markii laga baxay oo jamaacadi waa kuwan salaan ummadii oo dhan waxaan ka wadaa war hadaad bax laga yiraahdo ilaahay dartii u bax waxaad u baxaysaa إصلاح النفط هذا واحد صوبر نيسا فدق مسكيتك أيان دويت جماعة أفرتن عشور نوصل نقطة جيبوتي أنا مركز كجوجا أيان كيدا ورا أفرتك هذا محد كسوف فايدان كيدي مد بايودي شيخ أنا صلاة دي بهدم بلا بيبوري مال أنت جماعة حافظ ده يقصوا قادم بان صلاة دي به يان بلا بي أدنى محد كفايدي بان كنا روكينا وحوري أنا صلاة ده وأنتم كنجري صبح يقول أتك صلاة الصبح بيقول أتكيد بوري salaadii subaxna hadda waan ii joogsato ima dhaafi doonta buu ilaahay idankii hadeeto leh adna maxaad ka faa'iidaan dacwado xurniyo aan quraanka igu adkaa buu horta xifdiga quraanka waan bilaabay juz amaya tabaarik ba soo dhameeyay buu waxaana iga ballana buu maanta markaan sidaa u noqdo quraanka inaan xafidoon cilmiga barto halka markay marayso mid ba si ooyay markaas war bal aamus aduha ooyina maxaad soo faa'iido wala aamusin kari waay markaa وان يامن انك با لو oynaba maxaa helay ninka ma xanuunsan yahay amirkii baan ugu dhimay ma xanuunsanay u kaadiya markaasaan maxaa la oydo
maxaad ka soo faa'iido wuxuu yidhi anigu waxaan ahaa dhallinyarada mukhadaraadka isticmaala mukhadaraadka waad garanaysaan baan u malayn waxaan maandooriyaha hooyadayda i dhashay baan dharbaxa habeenkii la dhici jiray buu yidhi wixii baan hadda xasuusanayaa buu yidhi qof walba halkuu ka bukay ma ka soo bogsan mise kama soo bogsan hada huwa taqyiir albii'a muddadan bax lagu leeyahay wax kale ma aha bii'adda hayr weeyaan bii'addan aad ku dhex jirto yar bedel de insha allah haddii laynaga dalbana waan baxaynaa insha allah dhahada insha allah dhahada mise waxaad leedihiin maskiid beri annagoo joogno oday baa yidhi niyo wacdigiinaa yar marka hore aad wacdinaysaan aad baan u yar dhegaysanaa laakiin marka dambaan ka naxnaa buu yidhi waa markee baan idhoo marka qalinkiiyo buugga aad soo qaadataan aad leedihiin yaa ilaahay dartii u baxaya markaasaan ka naxnaa buu yidhi waxaan idhi haddaba ii dhegayso baan ku yidhi adeer ninku markuu dhakhtarka tago isagoo xumad ahaysoo jiran ayaa waxaa loo sameeyaa irbadda ninka dhakhtarku meesha uu ku mudaayo maxaa lagu sii sameeyaa suuf yaa alkool yar lagu tuujiyaa waa qabow waana macaan irbaddiina way daba taallaa soo maha hadduu yidhahda ka warran suufkaa yar aniga iigu ekaysii ma bogsanayaa maxaa la odhanayaa waar daawadu waxay ku jirtaa tee allah ina fahamsiiyo khayr baa inaga muuqda allah inii ziyaadiyo allah ini barakeeyo in sha allahu tacaala dadaalka diinta iyo cilmiga iyo dacwadda inaan kulmino soo diyaar uma nihin insha allah jaamacadada inii yimaada inaad la fadhiisataan oo dhegaysataan oo wakhtigiinna aad wax ka siisaanna diyaar ma u nahay dembigeenna allah ha dhaaf dembiga waalidiinteenna allah ha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allah ha shaafiyo maytaadkeenna allah ha u naxariisto allahuma aqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macaasiik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين